maanta waxaynu ku bilaabaynaa wararkayaga dhanka Suudaan halkaasi oo leeyadan oo Suudaaniyiinta ay warbaahinta u sheegeen maanta in maleeshiyaadka RSF ay qaadeen weerar saddex jiha ah oo ka dhan ah magaalada Al-Fashir oo ah caasimadda gobolka Darfur waqooyi ee dalkaasi Suudaan. wararkani ayaa ku soo beegmaya iyadoo ciidanka RSF ay soo kordhiyeen duqeymaha ay ku doonayaan inay gacanta ugu dhigaan magaalada oo muddo dheer go'doonsaneed iyadoona wararka hordhacaya ay sheegayaan inay jiraan dhimasho dhaawac badan oo ka dhashay weerarka gaar ahaan kuwa ka dhashay madaafiicda culus. isniintii hore isbahaysiga gudiyada iska caabinta Al-Fashir ayaa ku eedeeyay ciidanka gurmadka degdega ah ee RSF in ay dileen ilaa 6 qof oo rayid ah isla markaana ay dhaawaceen in ka badan 24 ruux kadib madaafiic ay ku garaaceen magaalada. bayaan ay soo saareen ayay ku sheegeen in ciidanka RSF ay dagaal ku qaadeen dadka gaajaysan iyo kuwa tabarta daran. ciidan ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka gurmadka degdega ah ee RSF ay madaafiic culus ku beegsadeen xarumo ay ku sugnaayeen dadka barakacayaasha ah iyo baqaar raashin oo ku yaalay magaalada Al-Fashir. dhanka kalena warbaahinta maxalliga ah ayaa soo warisay in guutada lixaad ee ciidanka Suudaan ay weerar lama filaan ah ku qaadeen koox ka tirsan ciidanka RSF ayna khasaare naf iyo qalab isugu jira ay gaarsiiyeen ciidankaasi. gudiyada iska caabinta ee magaalada Al-Fashir ayaa sidoo kale waxa ay xaqiijiyeen in ilaa 6 qof oo rayid ah la dilay halka in ka badan 24 kalena ay dhaawacmeen kadib weerar ciidanka RSF ay ku qaadeen magaalada. bayaankooda gudigu waxay ku eedeeyeen ciidanka RSF inay dagaal ku fureen dad gaajaysan ee kuwa tabarta daran iyo sidoo kale goobaha adeegyada guud ee Al-Fashir. dhankiisa taliyaha ciidanka gurmadka degdega ah ee RSF Maxamed Xamdaan Daqalo ayaa xadii ku eedeeyay ciidanka Suudaan inay 4 sano ka hor bilaabeen qorshaha dagaalka hadda soconaya ee ka socda dalka Suudaan. maxamed waxa uu intaasi ku daray in arrinta la xiriirta ee isku dhafka ciidanka gurmadka degdega ah ee Suudaan ee la isla gartay balse kooxu ku tilmaamay islaamiyiin ay isku dayeen inay hor istaagaan heshiiska afgaradka ahaa iyaga oo sii horinaya dagaalka dalka sida uu hadalka u dhigay waxaana uu ballan qaaday in uu ku soo laaban doono caasimadda Khartoum. dhacdooyinkani ayaa ku soo beegmaya iyadoo dagaalka military ee dalka ka socda oo inta badan uu socdo in ka badan ilaa 2 sano. magaalada Al-Fashir ay weli ku jirto goodoon adag iyo sidoo kale xaalad bini'aadantinimo oo sii xumaanaysa. warbixino caalami ah ayaa ka digay qorshayaal weeraro ballaaran oo lagu adeegsanayo diyaaradaha aan duuliye lahayn oo dalka lagu fuliyo kuwaasi oo sii kordhin kara rafaadka haysta dadka rayidka ah iyo sidoo kale musiibada bini'aadantinimo ee ka jirta Darfur. tahay haatana Washington iyadoo cirka ay ku shareeran tahay xiisada u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ayaa hanjabaad cusub waxay ka soo yeertay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaasi oo ku andacoonaya inuu shan meesha ka saaraynin weeraro duqeymo ah oo lagu qaado Iran. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu mar kale weerar ku qaadi doono Iran haddii ay dib u bilowdo barnaamijkeeda nukleerka isagoo ku andacooday in awoodaha nukleerka ee Iran la burburiyay. Trump oo saxaafadda kula hadlayay aqalka cad ayaa yiri waxaan burburinay barnaamijka nukleerka ee Iran waxaan rajaynaynaa in aadan dib u bilaabin sababtoo ah haddii aad sidaasi samayso waa in aan tallaabo ka qaadnaa ayaa yiri. waxaan hubin doonaa inaanan sugin muddo dheer haddii Iran ay dib u soo celiso barnaamijkeeda nukleerka ayaa uu sii raaciyay isaga oo tix raacaya suurtagalnimada ficilo military oo cusub oo ka dhan ah Tehran. bishii Juun sanadkan dagaal la socday muddo 12 maalmood Israa'iil ayaa bartilmaameedsatay xarumo nukleer goobo military iyo rayid oo Iran ah waxaana ay dishay saraakiil sare oo military oo ay ku jiraan taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka taliyaal kale iyo sidoo kale saynisyahano caan ah oo reer Iran oo dhanka nukleerka u qaabilsanaa. Iran ayaa waxa ay ku jawaabtay duqeymo gantaal ah oo sababay burbur aan horay loo arag oo ka dhacay magaalooyin waaweyn oo Israa'iil ah. isla waqtigaasi Mareykanka ayaa ku soo biiray dagaalka isaga oo duqeeyay 3 xarumood oo nukleer oo Iran ay leedahay taasi bedelkeedana Iran ayaa gantaal waxay ku garaacday saldhig ciidan oo Mareykanku uu ku leeyahay dalka Qatar. Trump ayaa waxa uu sheegay in barnaamijka nukleerka ee Iran gabi ahaanba la burburiyay balse qiimeyn sirdoon oo la sameeyay oo Washington ah ayaa waxa ay shaki gelisay sheegashadaasi. markana Australia
ku dhawaad 20 qof ayaa ku dhaawacmay joogasho ka dhacday waddo mashquul badan oo ku taala magaalada Sydney fiidnimadii xalay waxaana booliiska Australia ay shaaciyeen inay qabteen ninkii weerarka geystay booliisku waxay sheegeen in eedeysanuhu si indho la'aan ah u tooganayay gaadiidkii marayay waddada oo ay ku jiraan gaadiidka booliiska Stephen Barry oo ka tirsan booliiska gobolka New South Wales ayaa yiri waxaa jiray inta u dhaxaysa 50 ilaa 100 xabadood oo la riday 2 saacadood kadib booliisku waxay qabteen nin 60 jir ah oo lagu tuhunsan yahay inuu geystay toogashada waxayna geeyeen isbitaal kadib dhaawacyo uu ka qaaday xilligii la qabanayay booliisku waxay sheegeen in mid ka mid ah dhaawacyada uu halis yahay halka 19 kalena ay ku dhaawacmeen burburka muraayadaha gaadiidka ka dhashay weerarada noocani oo kala ah aad bay ugu yar yihiin gudaha Australia tan iyo weerarkii sanadii 1996 dhacay ee Tasmania lagu magacaabo oo ay ku dhinteen ilaa 35 qof waxaana Australia laga mamnuucay noocyada hubka adeegsigiisa وهجاج مركنا على روشكا يوكرين وركي قدام بيه هالكاسي إنه قرصنو يوكرين يا مانتا متكمل ورادي وعسلا وحق عركه وحيكو قادر روشكا يدو تنينا أي قيب كتاي قرركا وراد اللبض النعي سوي دار سنيان wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa maanta sheegtay in nidaamyada difaaca hawadu ay ka hortageen in ka badan 251 diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo laga soo riday dhanka Ukraine kuwaas oo ku socday gobollo kala duwan oo ku yaala ruushka iyadoo oo weerarkan lagu tilmaamay mid ka mid ah weeraradii ugu ballaarnaa ee Ukraine soo qaado tan iyo markii uu bilowday howlgalka military ee ruushka sanadkii 2022 intii lagu guda jiray weerarka habeenkii 251 diyaaradood oo Ukraine ay leedahay ayaa lagu qabtay hawada waxaana burburiyay nidaamka difaaca cirka ayaa lagu yiri qoraal wasaaraddu ay ku baahisay barteeda Telegramka wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in ciidamada Ruushku ay soo rideen 40 kamid ah diyaaradahaasi oo dul marayay jasiiradda Crimea oo Ruushku uu la wareegay sanadkii 2014 iyo 62 kale oo ku socday badda Madow sidoo kale 10 diyaaradood ayaa lagu soo riday gobolada Kursk iyo Belgrade iyo gobollo kale oo ku yaala Ruushka sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sii wada duqeymaha uu ku bartilmaameedsanay Ukraine gaar ahaan shabakadaha korontada iyo tamarta isagoo adeegsanaya diyaarado aan duuliye lahayn iyo gantaalo tan iyo markii uu bilowday duulaanka 3 sano jirsaday dhanka kale Ukraine ayaa iyadana uga jawaabtay weeraro kuwaas la mid ah iyadoo oo bartilmaameedsatay warshado iyo xarumo tamareed oo ku yaala gudaha Ruushka oo ay ku jiraan xarumo soo saara shidaalka